بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله في اسمان فارح waxaan halkan ku qabanayaa maansa aad u gaaban oo aan kaga hadlayo muuqaal aan daawaday habeen dhaweey gabadh show ku qabanaysay magaalada Nairobi oo runtii ka fogaa dhaqankii iyo fankii ay Soomaalidu lahayd maansadaasi waxay ku bilaabanaysaa Soomaalidu dambeel gabadh dhowrsan iyo dhaqan bay lahayd inan dhowr lahoo dhaka xiiran iyo dhinac hoolashada dhaqan uma lahayn abwaanadu dhabtii waatay dhaheen quruxduba dhammaan isku dhaafay dumar waa timaha dheer markaan dhowray shalay dhacdadii xumayd dhaayuhu qabteen wiswis baan la dhacay tani waa dhagdheer waa dhashii fircoon dhafoorada bal eeg madruwaa xuno intuu cudur ku dhacay dhogortii bidaa badharkeeda day dhinacyada karkaran dhaqan bi iskan day dhulka noogu timi hasha dhugatadiyo cudur uu ku dhaco dhan baa loo eriyaa waxaa taas ka dhigan qofkii dhaqan xun ee bulsho soo dhex gala dhisiis qaybiyaha bala kugu dhex nool haddaan la iska dhicin dhalinyaradu kicin dhagax lagu eriyo dhabi loo qorayn culimadu dhambaal fadwo aanay dhigin soo kama dhignaan inaan dhaqankan baas dhammaanteen rabniyo dhulka inuu ku fido hadal iyo dhammaan ayaa dhukuro dhadigii ma tihid ragna uma dhawide dhankee kugu tirshaa ayaa dhukuro fanka dhaawic iyo dhibaatada ka daa naayaa dhukuro dhulkii aad ka timi dhagxumada la aad annagana na dhaaf